gudbinta waraysigani waxa idin helay shirkadda xawaalada dahabshiil degdegsiimo doono dahabshiil hamuugaan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa isugu yimid munaasabad ballaaran taas oo taageero loogu muujinayay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo dhawaan loogu boqray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool xafladaas oo ay ka soo qayb galeen garaado cuqaal culimaa diin ganacsato iyo barbaar iyo waxgarad kale ayaa dhamaantoodba waxay u rajeeyeen una hambaleeyeen garaadka cusub waxayna Ilaahay uga baryeen in xilka uu uga dhigo xil fudud oo uu ku guuleysto Garaad Jaamac Garaad Ali Garaad Jaamac oo goobjoog ka ahaa madasha ayaa carabka ku adkeeyay in uu si weyn ugu faraxsan yahay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil isagoo u rajeeyay in Ilaahay u fududeeyo hawsha culus ee loo igmaday Garaad Jaamac Garaad Ali erayadiisii waxa kamid ahaa Garaad Jaamac waa ka oranayay ruuxantii waa jeclaanima aanu saminahay oo hadii baan khaldamo aan ku riixo haduu khaldamana igu soo riixa inaanu yeelano war Garaad Jaamac kala weynka waxa sameeyay aniga maaha waaba wacnaan lahayd oo waa jeclaa waana soo dhaweynaya aad iyo aad baan soo dhaweynaya aan ogahay dhalinyaranimadu in ay dibkeeda leedahay ma aha tii la oran jiray ninka dhalinyarada intuu geedka boodo talaka booda hadeer waxa bedelay ninka dhalinyarada in jeebka la gashtaa la jecel oo nin walba wuxuu sooranaya waa dhalinyaro waad ka haysan karaysaa ninka odayga mudaba laga leexleexanaya oo leeyahay warbal waxbuu garanayaa iyo taasina waa inoo dheer tahay oo waa kullayba dhibaato uu ila wadaagi doono insha Allah taala iyana intii ay ka yiraahdeen gudoon jilicsan iyo gar eexo iyo bay kaga filano wixii sanna waa la taageeraya wixii khaldanna de kullayba waxa weeye khalad fara badan baa hore loo sameeyo khalad dheeraada uma aynu bahni nasiib daro xilligan lagu jiro xaaladda Soomaaliya ka jirta guud ahaan dadka madax dhaqameedka Soomaaliyeed shaqadoodiina waxaad moodaa in laga gudbay tan hadda la doonayo inay qabtaana waxaad moodaa mid ay inta badan ku fashilmi karaan inay tahay sidoo kale Cabdulqaadir Firdhiye oo ah ganacsade oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu halka ku soo bandhigay erayo kooban oo ka turjumayay taariikh nololeedkii garaadka cusub ee lagu boqray dhawaanta magaalada Laascaanood waxaan leeyahay dhamaantiin ku soo dhawaada xafladda tan lagu hambalyeeyo laguna bogaadinayo cali masaarkii Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka dhacay magaalada Laascaanood waa kuma Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil sidaas u dhacday xafladii doorashadiisa iyo cali masaarkiisa waxaan ku horeynayaa shakhsiyadda Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo aan la kalmood soo ururinaya hadii Ilaahay ka dhigo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ugu horeyn waan dhalinyaro waxa uu dhashay 1970 bishii Oktoobar 1988 waxa ka baxay dugsiga sare ee Laascaanood sanadihii 1898 ilaa 2001 waxa uu ku diyaariyay kulliyadda Leha Oxford Business Administration isla markaana kambeeniyo fara badan ka soo shaqeeyay soo xilka u haya wadaafadana gudanaya 2009kii 22kii June waxaa lagu boqray oo lagu calaamad saaray magaalada Laascaanood waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu xilkiisa u fududeeyo isla markaana uu noqdo kii ka soo baxa hawlihii loo igmaday ee shacabku milgooda ugu dhibteen guntii iyo gunaanadkii Garaad Jaamac Garaad Ali ayaa ummadda Soomaaliyeed halkaas uga duceeyay garaadkana insha Allah taala kii wanaag iyo khayr inuu ku soo kordhiya Allah ka yeelo Ilaahay ka yeelo hawshan hawl uu naxariista ku helo oo miduu ku janna muto Allah uga yeelo dhamaantayadaba Ilaahay nooga yeelo kuwa maalintan harjirin arshiga Allah harsada waana loo deey waxa weeye waa imaam al-aadil cadaaladda oo insha Allah taala Ilaahay aanu wada hanuuniyo isagana ha ka yeelo mid manfac iyo khayr iyo ururin iyo midnimo nagu soo kordhiya wa sallallahu nabiyana sallallahu alayhi wasallam alayh idinkana khayr Allah idisiiyo meeshana aad ku nooshiina Allah idinku barakeeyo shirarkeena soo socdana Allah inooga yeelo kuwa midnimo iyo wanaag inoo soo horseeda Ilaahay inooga yeelo wa sallallahu nabiyana sallallahu alayhi wasallam Ibrahim Mahmoud Jaamac Yo,
Thank you.